xamdi gabadhaas idiin muuqata waxay buddig u ahayd nolosha qoyskeeda, hase ahaatee waa la soo gaabiyey. saaka waa la aasayaa, waxaa lagu aasayaa duleedka degmada Dayniile, halkaas oo ay isugu tageen ehelada iyo qaar ka mid a deriska oo muxsiniin ah. gabadhan aad arkayso naxashkeeda oo halkaas yaala waxaa dabin u dhigay wiil ay saaxiibo ahaayeen, kaasi oo rag kale oo saaxiibadiisa guriga ugu sii balamiyey, kadibna ay wada kufsadeen. qoyska gabadha oo isugu jira waalidiinteeda iyo sidoo kale deris muxsiniin ah ayaa goobtan isugu yimid, waxayna ka hadleen xaaladda adag ee ay la kulmeen iyo sidoo kale sida ay uga anfariireen dhacdadan loo geystay gabadhooda. shalay si nabada xiliyaanan isleenahay la farsaameen aaday qof nadiif ah maaragtay waxbarasho ku jirtay sanadkan hadda aan ku jirno koonfurka u fadhiisatay hami waxbarasho waa ay yar u aayeen. waxaana nugula ku wargeliyey gacmo ka gacan inay dishay. waxaa laga soo tuuray dabaqaa laga soo tuuray. ma garan karno dagarqabayaashaas qaabka ay maaragtay sifahaas waxay ku keeneen ma garan karno. waxaan leenahay hadda calaamadeena noo soo ifiyo gabadhaasi hadda shalay oo kale ilaa xalay gacanta waxaa ku hayay ciidamada maaragtay booliiska amba CID amba mataqaanaa hay-adda saaran baarista. marka sidaas waxaan leenahay marka waxaan u baahannahay xuquuqdeeda inaan helno. waxaan u baahannahay oo maaragtay aan cadaalad helno. meesha ay maaragtay dhibkan uu ku gaarayo ma aha meel duur, mana ahan meel aan la joogin. waxaa waaye magaalada muqdisho meeshii santarka u ahayd waxay ka soo horjeedaa meesha la yidhaahdo isbitaalka daarushifo kasoo horjeedkiisa dabaqa dhiga booska saddexaad oo dhinaca waa beri weeyaan meesha ku gaadhay. xamdi waxay ahayd gabar aad u jecel waxbarashada, sidaad arki karto hadda waxay dhaxal ahaan qoyskeeda uga tagtay dhigaalkaas quruxda badan oo ay akhrisan jirtay. qaarkood waxaa ku xardhan magacyadeeda sida Titooreyso Xamdi, oo hoga tusaaleynaysa inay jecleed inay noqoto dhakhtarad dadka Soomaaliyeed caawisa, laakiin nolosheediiba waa la soo gaabiyey. arxan laawe ay maciin biday ayaa sidaasi u dhakray. hooyada dhashay gabadhan oo nala hadashay oo wejigeeda laga dheehan karo murugta iyo xaaladda adag ee ay wajahayso ayaa sheegtay in ayba iska tahayba xilligan la joogo sida qof iska nool micno la-aan. waxay tiri labadii indhood ee aan eeganayay ayaa liiga riday, xaalkaygu ma qiyaasi karo. habarteeda ahay muddo 10 sano ayaa ila joogta iyadoo yara baadila iga keenay. intaas waxbay baranaysay, dadaal iyo jundi waday. qof kulay baa naga akhlaaq xum ama wareeg aan ku naqaano ma aysan ahayn. qof aad mustaqbalkeed u wanaagsan u ahay. hadda waa qiso naxdin leh oo nagu dhacday oo murugo leh, waana muutrafaj wix ilaahay noo keenana waa ku qanacsana, waa qadar ilaahay. laakiin waxaan su'aalanaynaa ummadda muslimiinta ama dadka muslimiinta oo danqanaya gabar sanadkan qalin jebisay, mustaqbalkeedii ayatiinkeeda hami waxbarasho lahayd. hadeertaana dhibaatadaas ay ku dhacdo kufsi iyo dil la iskugu daray inay arrin murugala tahay. dabaqna laga tuuro 8 biyaano dabaqa ay ka soo dhacday oo laga soo tuuray. waa laba qiso oo laga weyn murugo ay leedahay, aadna u naxdin badan tahay. marka waxaan codsanaynaa ummadda islaamka ama dawladda ama qofkii ka danqanaya arrintaas, oo qof walba wadaduu dhalay, dhibaato ilmo u dhalay, awlaad u dhalay, uu dhibsanayaa. dhibaatadaas annaka nagu dhacday in nagala gurmado, cadaaladdan naloo hor keeno ayaan codsanaynaa qofkii dhibaatadaas noo geystay. waa tahay marka gabadha geerideeda sidee laydinku soo wargeliyey? waxaa nagula soo wargeliyey hooyadeedu baadiyo joogto wacay, taleefanka maqan oo ka wacay. wuxuu dhahay ma ka naxaysaa Xamdi gabadha la yiraahdo? haabay tiri anaa dhalay. marka wuxuu yiri isbitaalkaasay taalaa ee ka doonuu ku dhahay meydkeeda ka doonuu ku dhahay. asagii oo dhibaatada geystay oo taleefankii maqan hadda haystaana aawacay hooyadeed. dad la tuumayo ma jiraan marka gabadhaas inay falkeeda ka dambeeyeen? waxaad aan tuhmi karno ma jirto. gabar yara waxay noo sheegtay inay mobile uu nin uga soo dhaartay. wax kale oo hadda aan ka
ognaha ma jirto. xamdi marka gabar noocee ayay ahayd? gabar akhlaaqdeedu wanaagsan tahay, dad jecel, waalid jecel, walaal jecel, hamiyad waxbarashana haysata ay eedo inay dadaasho waxbarata ay ka go'need. sidee dareenteen marka aad maqasheen geerideedu? waa geerin adigu waa dareemi kartaa. qofkaaga aad jecleed sariirta kula jiifay, anay 4 saac subaxnimo ila quraactay, ayadoo meesha fadhida un baan ka tagnay, haddaan soo noqono waa maqneed, geerideedaan ay ugu xigtay. adigu ruuxdaada waa dareemi kartaa qofka dabiirtiisa, qofka uu la quraacday, la noolaay, la ceeshaayay, haddii oo waayay meydkiisa guriga lagu keeno waa dareemi kartaa murugada xalinta ay leenahay. gabadhan dhalinyarada ah ee la dilay haddaba waxaa dhagray wiilkaasi Soomaaliyeed. haddana waa cadaalad sugayaal qoyska gabadhan, waxayna codsanayaan in cadaaladda la horkeeno shakhsiyaadkii heshiiskaasi wada ogolka ah ku gaaray in marxuumadaas aan waxba galabsan ay kufsadaan. iilka ayaa saa kala dhigay iyada oo aan wax dembiya lahayn, hase ahaatee ceeb iyo dembiba waxay u sugnaatay dhagarqabayaashii arxanka darnaa ee walaasheen Soomaaliyeed ee aanan ka mudnayn tacaddi noocaas oo kale in loo geysto ku fuliyay facilkaasi bahalnimada ah. Soomaaliya dhowr jeer oo hore dacdooyinkan waa ay ku soo noqdeen, hase ahaatee haddii laga qaato nidaam adag oo cadaalad ah oo lagu fuliyo qof kasta oo tacaddi noocan oo kale gabar walaashiisa u geysta, xaalku sidan waa uu iska bedeli lahaa.